muuqaalkaasi waa muuqaaladii ugu dambeeyay waxa la ceyrsanaya ee rasaasta dhacaysana waa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Somaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Sayla waa ninkii soo saaray amarkii uu sheegay inuu ku joojiyay xafladda xeer ciise ee guurtigii iyo madaxweynaha maamulka Somaliland ay isku raaceen in 5 bisha 12 lagu dhigo magaalada Sayla ee xarunta gobolka Salad xilli uu marahayay magaalada Ceelgaal oo beeshan ciise ay degan baa inta hub loola soo baxay baa dabada laga galiyay sanka laga galiyay Soomaali baa cid u dawladeyn karta na qoys u dawladeyn kara qoys uma dawladeyn karo xaqiiqda markaan ka hadalno weeye amar wixii ka dhasha oo natiijo xumo ah oo asagu qaadan doono mas'uuliyadeeda wasiirka arrimaha gudaha isagu qaadan doono ayay noqon doontaa go'aankaas isagu ku dhawaaqay magaalada Sayla oo ku dhawaaqay xaalad adag ayaa taagan wadooyinku waa xidhan yihiin xabadda waad maqlaysaan xaalku marba marka ka dambeeya jiq ayuu sii geliyaa jamhuuriyaddu meel ay ka bixin doonto lama yaqaanee sii shargareeya muuqaalka like saara aragtiina nagula wadaaga qaybta commentiga oo isgaargaarsiiya ciise looma dawladeyn karo xaqiiqda markaan ka hadalno weeye dulmina ka yeeli mayno oo inay dad kale dulmi ku qaadaan kama yeelayno laakiin maanta waa la dulmiyey waxaysan filaynin baa ku dhacay ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa aragtaa waxaan rabnaa markayna ku garab istaagno codkeena sii shargareeyo meel dheer gaarsiiya aan ku bilaabay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Somaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Sayla ayaa saaka rasaas afka laga galiyay xilli uu marahayay magaalada Ceelgaal oo beesha ciise ay degan magaaladan shalayna ciidan baa la geeyay Somaliland mise darhad bay ahayd ciidamada la geeyay deegaanadan Ceelgaal guban iyo aagaas oo dhanna maalmahanba way xidhnaayeen oo shacabku gadoodsan ayaa halkaas ku sugnaa waa deegaanada beesha ciise ay degan weeye wadadaas gabi ahaanba way xidhnayd baabuur baa xataa la jajabiyey oo dad rakaab ay sarnaayeen oo waxyeelo la gaarsiiyey oo dadkii rakaabka ay wax soo gaareen taas aad baan uga xumaay waana ku cambaaraynaynaa beesha ciise inay waxa weeye dadka rakaabka ee socda ay waxyeeleeyaan macquul ma noqonayso suurtagalna maaha dadkii dhibkaasi geystay waxaa leedahay ilaahay ka cabsada mar dambe dad rakaaba qof socda oo safara ha u dhawaanina dagaalka halka ha gaarsiinina laakiin idinka iyo xukuumaddaas fadhiidka ee waxa weeye go'aankeeda aan istabamarsan ee kala hamayaaqa ee waxa weeye aan isla soconin idinka iyo xukuumaddaasaan isku kiinognahay ilaa tiina ay ka suuragelayso laakiin dadka rakaabka ee safraya ee socda dadkaas waxba mayn galabsanin qof shacab oo iska socda ha u dhawaanina dhinacan sabaroona iyagana sidaas la mid ah dagaalka dadka masaafurka yaan la gaarsiinin hawshu hadday halkaa gaadho way xumaanaysaa dulmiga qoladii sabaysana dulmigaas wuu ku dhacayaa uu ka soo baxaya dagaalkii tusaale ay soo qaadanaya ilaa sacaanood markuu ka socday iyadoo shacabka iyo xukuumaddu ay haystaan yaa waxay bilaabeen isaaqo inay waxa weeye wadooyinka ay jidkooyo dhigtaan oo ay dhahaan qabta kan safarka kan soo qabta gaarigan iyo baabuur inay dhacaan iyay bilaabeen markay arrintaa dhacday maxaa dhacay waxaad aragteen baa dhacay haliga waa la halaagay wax kale oo ku tilmaamay garan maaye waa la halaagay dagaalkii duufaan ee Sooraan iyo Jawaan iyo ninka kale muxuu ahaa ee kooxdoodii ay ka sheekeynayeen duufaan waxa weeye duufaan ay u bixiyeen xabadda ilkaha lagu qabanay tii oo kala dhacday xabadda ka soo dhacday ciidankii isaaq waxay noqotay wax aad moodo afka in lagu qabanayo afka oo qof baysan ku dhacayn tii xaggan ka soo dhacdana saraakiisha iyo jananada iyo ciidanka iyo baabuurti ayay haleelaysay taas baa marka waxay sababtay in xataa xabadoodu markii dambe askarigu inuu qoriga iska turo uu yiraahdo cagahaada ku baxso inuu yiraahdo oo la qabta marka ayagoo koox sidii dagaalka Eritrea iyo dhaxmaray Ethiopia ee raxanta loo qabanay tii amal ayaa dhacday marka waxayna leeyahay dulmi ha sameynina xafladda inaad xaq qabsataan ciise oo xaq baad u leedihiin Soomaali oo dhan baa idinku taageersan waa wada sharci waxa weeye xaqood ku taagan tihiin deegaankiina Sayla ilaa iyo waxa weeye Looyacado ilaa iyo xaggan Ceelgaal sii soco gubal dhulkaas oo dhan idinka dega baddaad ku qabsan kartaan barigaad ku qabsan kartaan cirana waa kan isla qaadateen wasiir xun had ka hadlay oo message loo soo dhiibayna waxba kama bedeli karo go'aankiina isimadiina ay soo saaraan
كاس اسكو وحوي كو تاغنادا كو تاغ وحوي سومالينا تاسay ugu taageersantahay laakiin dulmi ha sameynina dad iska socdo masaafura gaari iska socdo waxaway qafaalataan arimaha Allah inaga ogaado baashu hadda af bay taagan tahay adin ninkii qaada ninkaas buu war u yaala waa idinkii Samaroon markaan ka hadlayo way idinkii Samaroon hadday intay dhahaan xafladda ma qabsan karaan ay dagaal soo qaadaan Soomaali oo dhan baa garabkiina taagan Soomaali mooyma Soomaa kuwan xukuumadda ku jira Soomaa kuwa eriyada sanka ka galiya xabada markay yimaadaan sanka ka galiya xukuumadda wax ka socda inima way baa kareedik isma baa arki kartaan idinkii waxay ishaya xukuumaddii warka soo saartay baa ishaya wax kale laakiin maya idinka iyo nimanka Samaroon ee la isku kiindiray ee buriya bagaafta la isku kiindibay yaa dhaxdiina laga faa'iideysan waa la isku kiindirayahay guy waayeen waxba meeshaas waxa weeye ka soo socday waxa weeye arintaas ka wada Samaroon waxaan leeyahay waad gal darantihiin nimankaas idinka isimadiina qiray inaad sayra isla degantiin idinka afkiina ka qiray Soomaalina way ogtay ku qabsada tiina iyagana tooda qabsadaan maxaa tooda amni daraka dhigotiina amni ka dhigay waay idinka Soomaaliland baa wakiil ka tiin waxaan leenahay Samaroon ay xishooda ilaahina ka cabsada joojiya dagaalka iyo hurinta iyo waxaan leedin soo dhibayo joojiya taana iyagana intaas aan leeyahay magaalooyinka wadooyinku way xidhan hadda shacab careysan baa xidhay xaalkuna waxa weeye meel xun buu maraya wasiirkii la soo dirayna waxa la eryanay ee say ciidankiisa leeyahay war ciidanka qabo war way carayaan war cararey qabta ilayhiin xabad baa san kala galiyay dhibayana war loomayo hadda warkan aan duubayo waa war hordhaca waxa weeye degdega way inuu dhintayna waaba suurtagal oo beerka lagaga dhuftay ciisuhuna ma kaftamo ninna ma dawladeyn karo ninna qofkuna qof ma dawladeyn karo isaaq waxay bartaan jamhuuriyadda intay dhahaan bay waxa weeye dadka u dawladeynayaan oo wasiiradii ugu badnaa iyo wixii ugu badnaa ay qaateen oo madaxweynaha iyagu ay yihiin taana horay baaba looga diido wixii ka raacay wada ogsoonayeen marka cid uma dawladeyn kartee waxaan leenahay meesha waxba ka soo socda ciise oo waxa weeye dhulkooda xoreystay oo ka xoroobay maamulkan fadhiidka goorigoosadka ee ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatadoodu ka shaqeeya ayaa soo socota marka waxaan leenahay ciisow ninna inaga hanti badna oo qofna inaga waxa weeye dawladsana oo dadna inaga badna oo dadna inaga geysisana dawladda dhan bad waxa weeye 30 sano iska maamulanaysan oo waxa weeye tiraha hadii la dhaxata waxa weeye laga yaabo in aad basad dadka kale inaga badan yihiin waxaana waa raganimo iyo geesinimo iyo xiniintiina way idin goysay marka waxaan leeyahay dhulkiina xor badutiin xoreysta dhulkiina ninna inaga hanti badnee xoreysta maanta fursad baad haysataan jaanis baad haysataan haddii jaaniska maanta ina seego oo sida Isaaq iyo Samaroon ay ku heshiyeen ay u noqoto deeshay waxa weeye mar dambe sheegashadiina waxba tari mayso Soomaaliland way idinka dhamaatay iyo dhulka degayseen ee ilaa iyo waxa weeye baamada isku xidhnaa way idinka dhamaatay taasaan leeyahay waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho hadduu Allah idmo